soo dhawaada daawadayaal galab wanaagsan qodobada xiisaha leh aad galabnimadan aad halkan ku daawan doontaan haddii barnaamij laga helana waxaa ka mid noqonaya shan gaari ay lahaayeen ciidamada Somaliland ayaa lagu gubay tuulada Gaarisa haddaba sababtu maxay tahay maxaa ka dambeeya ama qaab noocee ah ayaa loo gubay muuqaalkan ayaan saaxiib yaal idin kula wadaagi doonaa haddii barnaamij laga helo sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh halkan ku daawan doontaan haddii barnaamij laga helana waxaa ka mid noqonaya beesha Ciise ayaa soo saartay bayaan iyagoona sheegeen in gebi ahaanba tuulada Gaarisa ay gacanta ku dhigeen haddaba maxaa ka jiro muuqaalkan ayaan saaxiib yaal idin kula wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh halkan ku daawan doontaan haddii barnaamij laga helana waxaa ka mid noqonaya taliyaha ciidamada guud ee Somaliland Nimcaan Gahnoog ayaana si adag uga hanjabay beelaha Ciise iyo waliba Samaroon isagoona sheegay haddii ay mar kale isku dayaan deegaano iyo waliba sidoo kale tuulooyin iyo degmooyin ay ku sugan yihiin ciidamada Somaliland haddii ay duulaan mar kale ku soo qaadaan qodobadaas iyo kuwa kale oo aan idin qarinayo ayaad saaxiib yaal halkan ku daawan doontaan soo dhawaada anigu waxaan ahay Abdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanalkayga Macaash Media haddii ay taa markuu ugu horeysay fadlan kanalkan rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna like garaysiin share garay saaxiibada la wadaag kamid noqo saaxiibada cusub ee nagu soo biiray si aan u gaarno 10,000 subscribe sidoo kale muuqaalkan like garay like meel leer ayay gaarsiisaa muuqaalkan mahsanideen hagaag aynu ku bilaawno shan gaari oo ay lahaayeen ciidamada Somaliland ayaana lagu gubay tuulada Gaarisa kadib markii ciidamo ka tirsanaa kuwa beesha Ciise ay dhabaha u galeen gaadiidkan dagaal iyo waliba sidoo kale askar ay markaas saarnaayeen waxaa la leeyahay xilli xalay waqti dambe ay ahayd ayaa ciidamo ka tirsan kuwa beesha Ciise ay dhabaha u galeen ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland oo ay wateen shan gaari oo nooca Cabdibilaha oo ku xiran qoriga dhashiikaha balse waxaa dhacday markii ciidamadan dhabaha loo galay ciidamo ka tira badan ayaa gacanta ku dhigay iyagoona gebi ahaanba la sheegay in ay iyago oo aan waxba lagu taawanin la wargeliyay laba joos midkood war Somaliland way jabeen ciidamadii Somaliland xalay way jabeen waxaa la yiri laba mid qaata ama laba mid inaad dooratiin waa qasab kow waa in aad maaragtay hubka soo wareejisaan gaadiidka ka degtaan gaadiidkaas la gubo idinko nabad qaba inaad ka baxdaan ama in gaarigaasi la gubo ama maaragtay gaari ayaga la isla gubo la isla dilo ama waxba laga reeban ama in ay iyagoo lugtooda ku socdo qoryihii laga qaado ay meesha ka baxaan aan maxaabiis aan xitaa loo qabsan waa dhacdooyin markaasi yaab leh marka loo fiiriyo tan iyo markii dagaalkan uu bilowday nimankii Somaliland ciidamadooda kabay isku dhufsadeen wadadii ay raaceen gaariga ay wateen ilaa shanta gaariga ahaa waa la gubay sidoo kale qoryihiina waa laga kala qaatay war Somaliland waxa ay markaasi ku dhacday musiibo aan la filaynin shanta gaari macal qoryi xitaa saarnaayeen lagama furan dab iyo benziin la qabtay waa lagu kala baxay marka ugu dambeynna ciidamadii iyagoo lug ku socda infantry la iska fasaxay oo waa ay bixeen shantas gaarina waxa markaasi laga dhigay kuwa basbeelay oo Somaliland ay lahaayeen Somaliland si caral ay waliba uga hadleen arintaas waxa ay sheegeen in wax laga yaqiiqooday ay tahay ciisuhu waxa ay ku dhaqaaqeen tan iyo markii dagaalkan uu bilowday markan sheekadu waxa ay noqotay dagaalkii saddex geesoodka yaa la aaminaa waa Samaroonka iyo Ciisuhu isma aaminayaan Ciisuhu iyo Somaliland isma aaminayaan Somaliland iyo maartay muxuu ahaa Samaroonku isma aaminayaan marka sheekada waa saddex wareeg waa marna Samaroonku iyo Ciisuhu is xigsadaan waa sheekada hadda ay bilaabeen marka hore waxay ahayd Somaliland iyo Ciisuhu dagaal waxa u dhaxeeyay Samaroonku iyo Ciisuhu dagaal ku dhaxeeyay markii sidaas ay noqotay Somaliland ciidamadeedu waxa loo xaglinayay dhanka Samaroon inay jiraan waa Ciisuhu sidii aaminsanayeen sidoo kale Samaroonku wuxuu aaminsan yahay in dhankan uu jiro marka sheekada waxay noqotayba in labadooda la isku tuhmo in isla jiraan Somaliland ay sidaas ku weeraraan waana sida xaqiiqda ah ee dhacday in weerar kala duwan ay isla galaan ayna noqoto in Somaliland halkaas lagu jibiyo maadaama Somaliland ay rabto deegaanada dadkan ay degiin beelahan ay degiin inay si awood ah kula wareegto hadda deegaankan Gaarisa iyo waliba sidoo kale tuulada Durdur iyo meelo badanba waa la isku haystaa oo waxa ay rabaan Somaliland inay xoog ku maartay ku sheegtaan oo ay gabi ahaanba la wareegaan marka iyagana way diidan yihiin oo waxa ay leeyihiin ma jirto oo ma dhacayso inta noolna marka xaaladdu waa allow sahal
ciidamadii Somaliland jab xoogana gaaray iyagoo aan waxba lagu taaban qoryiin laga qaatay hubkii gaariga laga dhigay iyagoo hubkooda caliyaa wato aalayri wadada qaada oo aada meesha u socoteen marka iminka Somaliland taariikh iyo mar kale waxa lagu dhigay wajib gabax kale ay kala kulmeen geesiyaasha beesha ciise ciidamada madaniga iyo waliba sidoo kale Samaroon oo islaha iyagana qayb lixaad leh ay arinkan ka qaateen marka Somaliland halkaas way ku jabeen qodobkeena kale xigaan fiirino marka beesha ciise waxay soo markaasi bayaan ay soo saareen iyagoo ku sheegeen in gabi ahaanba tuulada Geerisa ay hadda iyaga gacanta ku hayo warkii hore waa soo dhaafay beesha ciise waxay sheegeen in gabi ahaanba iyagoo hadda ay magaalada maamulaan ay gacanta ku hayaan tan iyo markii dagaalkan uu bilowday waxaana tuuladan ama maartay ay naqatay dhowrkii maalmood u dambeeyay meel ay si weyn dadku ugu dagaalamaan dadkii farkutiriska ay joogeen mar hore ay isaga tageenba waa magaalo maran ayaa lagu wada dagaalamaya ciise waxay hadda leeyihiin inaga kaabaka ah inaga hadda halkaasi maamulo halka Somaliland ciidamadooda gabi ahaanba ay banaanka isaga bixeen kadib markii dagaal dhowr saacadood uu socday halkaasi uu ku dhaxmaray waxaana xaaladdu ay tahay hadda mid aad u kacsan inkastoo walow ay hadda wax rasaas aysan socon haddana waxa laga yaabaa ama in maartay marka la isku laabto sidoo kale rasaas goosgoos waa la maqlayaa dadka deegaanka qaybtood ayaa wali ku sugan oo cabsi iyo ku dareemayaan gudaha magaaladoodii shalay nabad ahayd maanta ay ku kor dagaalamayaan Samaroon iyo waliba sidoo kale ciise iyo Somaliland tan iyo markii dagaalkan uu bilowday Somaliland khasaarooyin waaweyn ayaa halkaas lagu gaarsiiyay iyagoona markaasi ay naqatay mid kamid ah khasaarooyinkii ugu waaweynaa ee abid halkaas lagu gaarsiiyay maxaa yeelay dagaalkan waa uu sii daba dheeraaday haddii uu ilaa iyo bilooyin kale oo sii socdana waxa uu noqon doonaa mid sii sanad jirsada oo dagaalka sii dheeraado oo hub far badan la isku hela oo iyagu waliba ardaadaqad la iska dhiga marka nimankii Somaliland xaalka ayaa ku xun tan iyo markii dagaalkan uu bilowday hadda waxay leeyihiin beesha ciise waxaan gacanta ku dhignay 27 bisha oo ay markaasi maalintii shalay ahayd gelinkii dambe ay waliba gacanta ku dhigeen maanta oo taariikhda 28 ay tahayna gacan ku heenta inaga ayaa hayna ay yiraahdeen soo kale waxa ay sheegeen in ay jiraan maxaabiis Somaliland oo ay ku qabteen tuulada Geerisa inkastoo aysan warbaahinta aysan soo bandhigin haddana sheegashada ciisuhu waxay markaasi ka turjumaysaa inkastoo Somaliland arinkan aysan ka hadleen haddana waxa muuqato in halkaasi gacan ku heenta magaaladaasi ay Geeriso ay iyagu gacanta ugu jiraan beesha ciise waliba beesha ciise kaliya weeyaan Samaroonka xitaa kuma jiro oo ciisuhu ayaa hadda halkaasi xureystay oo gacanta ku haya kuwa Somaliland kabtooda cagtooda ay wax ka dayeen oo way isaga bixin tuulo durdur liiraado ay dabada la galeen oo ciidamada Somaliland ay ku sugnaayeen kuwii shalayna laga qaatay hubkii iyo muxuu ahaana meeshay gaareen tuulada durdur kuwaana waxay markaasi laga baxsaday Geerisana tuulada durdur ay isugu yimaadeen halkaas ay maartay wada tashadii ugu dambeeyay ay halkaasi ku soo qaadanayaan iyagoona la filan karayo in dhawaan dagaal rogaal celin ay soo qaadaan ciidamada Somaliland waliba rag saraakiil oo caana ay soo hogaamin doonaan tani waxa ay fajac iyaab iyo waliba sidoo kale ur ku taalo ay ku tahay guuldaro qaran ay ku tahay ciidamada Somaliland kadib markii laba beelood oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed ay iska dhicin waayeen iyagoo maamul dhan ay sheegtaan ayaana dhagta dhiig loo diray tan iyo markii dagaalka uu bilowday qodobkan ugu dambeeya aan ku soo gabagabeynaya hadii aan fiiriyana waxa uu leeyahay taliyihii ciidamada guud Somaliland Nimcaan Gaxnuux ayaana markaasi isagoona markaasi aad u careysan uu u hanjabay beelaha ciise iyo waliba sidoo kale Samaroon waxana uu sheegay in aysan laga aqbali doonin dhaqdhaqaaqyada iyo waliba sidoo kale waxa ay ka wadaan awdal taliyaha guud ee ciidamada militariga ee Somaliland Nimcaan Gaxnuux ayaa sheegay in wax laga xumaaday ay tahay in Samaroonka iyo ciise loo turay ay sidaan oo idil ay awood u soo yeeshaan waxa uu sheegay in marka looga heebeysan doonin waa beel ama waa dad Soomaaliyeed waxa uu sheegay in ardaadaqad laga dhigi doono Jamhuuriyadda Somaliland ay noqon doonto mid dullibiinta yeesho isagoona sheegay in ay digniin adag oo ay siinayaan ciidamada markaasi ku sugan banaanka kuwa uu ku tilmaamay maleeshiyad iyo kuwa markaasi beelaha ay wataanba dhamaantooda baaq ay u jeediyay waxa uu sheegay in saacadaha soo aadan war weyn ay dadku maartay Somalilanderka ay maqli doonaan iyagoona dagaalkan uu sii daba dheeraan karo walow aan loogeen xaaladda ay halka ay ku dambeyn doonto haddana waxa muuqato mid cabsi badan ay soo wajeyso taliyuhu waxa uu sheegay in ay dhawaan tuulooyinkii iyo deegaanadii laga farahooda ka baxeen inay gacantooda dib ugu soo celin doonaan qaranka Somaliland uu guuleysan doono waa hadaladii uu yiri taliyaha ciidamada waa taliyaha guud ee militariga Somaliland Nimcaan Gaxnuux
isagoona sheegay in ay arrinkan aysan sii fududaan doonin oo guud ahaanba ay noqon doonto inay gacan bira ay ku dhigaan guud ahaan daawadayaal intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo muuqaalkan haddii aad halkan ila soo gaartay waxaa tahay qof qalbi wanaagsan waxaan si naxariis leh kaaga codsanaya inaad kanalkan soo subscribe garaysid muuqaalkan la garay siina share garay saaxiibada la wadaag oo ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan mahadsanidin